nimayahow waxaan daawaday xilli wareejinihii wasiirada anigu xaflad kaliyaan u tagayaan u malaynayaa laakiinse TV-gan si fiican uga wada daawan jiray ninka aanu khushuucay ee wasaaraddiisii dhisay ee shaqaalihii dhisay ee cadaaladda u sameeyey ee runtii aan ka mabsuuday ee shaqaalihiisii oo dhowr boqoli ay u ooyeen runtii oo aan aad iyo aad uga helay oo aanu arkay inuu nin muwaadina yahay oo aan jecelahay wasiiradan cusubina la magacaabayna inay ku daydaan waa ninka wasiir Cadaani la yidhaahdo waxaa laga yaabaa qolyo badan oo reer Burco ah iyo rag badan oo ama xaafadda uu ka soo jeeda inaanay jeclaysan hambalyadaydan waa markay ka hadlayaan dhinaca siyaasadda anigu dhinaca siyaasadda kama hadlayo anigu waxaan ka hadlayaa ninkaas xilba madaxweyne Axmed Maxamed Jiilayo uu eegmaday xilkii waxayd wasiirka warfaafinta muxuu raaday ka tagay baan anigu qiimaynayaa ninkaas markii aan xafladda daawanayay waxyaalaha qodobada uu soo qaatay ee anigu isaga maan maqline aan ka maqlay shaqaalihiisa xabad markay u hadleen waxa weeyaan kow wasaaradaasu waxa weeyaan waa wasaaradda warfaafinta dhaqankii baa ku jira waxa dhan baa ku jira abwaaniintii baa ku jira waxa ku jira fanaaniintii baa ku jira wariyaashii baa ku jira waa dee sallacale waa wasaaradda aad iyo aad u hawl badan oo ballaaran oo shay badan qodobadan soo qaatay runtii aan aad iyo aad ninka ugu hambaliyeen ugu mahadnaqaya aan ilaahay leeyahay ilaahu ka jazaaysi waxa weeye waxa jiray dad ilaa 100 iyo ziyaado gaaraya oo temporary ahaa muddo 20 sanadood 10 sanadood 5 sanadood 9 sanadood 2 sanadood ugu yaraan 3 sanadood intaasoo wasiiro imanayay dadka imanayay mid kaliya ilaahay kamuu yaabinoo permanent kama dhigin ninkaasu intiiba permanent buu ka dhigin waa qodob weyn oo waxyaalihii shaqaalihii aan ka dhegaysanayaan qodobka laadna waxa weeye laba qof oo isku meel oo isku shaqaaba ayaa midna 4 milyan iyo 500 qaadanaya midna qaadanaya 500 shanaylaatan sanadoodii joogna bisaasay ahayd wasaaraddaas ninkaas ilaahay buu ka yaabayo darajadii isku mid ka wada dhigay waxay isku wasaaradaha mushaharkii uu wada simay waa qaybiyana waxaa jira habla ku raagay meesha oo xirfadlayaal ah oo fanaaniin oo mataqaanay dawliyaal ah oo aan habeenna la dalacsiin 16 hablood buu dalacsiin wuxuu keenay layrkii iyo shidaaladii iyo wixii kadeedi jiray dadka ee laga qayrin jiray dee waxna lagu liqi jiray uu ka saarayo wuxuu keenay muxuu ahaayey layrka dee cadceedda waxaan kaloo idiin sheegayaa runtii aan ku ammaanaya waxa weeye ninkaasu hal qof oo shaqaalaa ma qorin xaggiisa waayo 160 baa tabareeray hadde kuwaasuu ka fuuriyaalay nin reerkoodu aad lama keenin waxaana weeye intaan maqlaya wasiirada wareejinaya lacagta ninka keliya lacagta dollarka ee sidaa u daadanaysana wareejiyey ee nin walba hoosta gashan lahaa dee salacalad yaa bal nin walba cajiraddaa ku noqo xil wareejintaa Cadaani maca qolada xaafadiisa ah dee maagaysaay war bal siyaasadaba mabdiisu dee la raacay ninka hore iska daayo bal ninkan horta eega ma magac buu idin soo kordhiyay mise idin soo kordhiyay salacale aad ba wasiirku ammaanaya ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay darajada kuu siyaadiyo oo caafimaadka kuu siyaadiyo anigu nin xildhibaan oo xaqa jecel baan ahay nin waxaan ahay dee ku dhaata cadaaladda oo waddankan ka sugayo la ilaahow marun cadaalad rabbigo dadkan dee lufuufay ee kadeedan ee mataqaanaa salacale maxaa moodaysanaa ictiraafka maxay naga haya dulmigayga naga haya ictiraafka dulmigan aynu isdulmayno ee kadeedanahay ee ummaddeennanu ayna waxba u qabanayn ee ay rag badan oo dee imakayna kuwanayna dhaafay xukuumaddana dhaaftay imtixaanka ahayd ay dib walba waxa ka siiyeen waxyaalahaasa roobkii iyo abaarihii iyo waxaasoo dhan ilaahay waxaan ka baryaa xukuumadda Muuse Biixi
ilaahay waxaan ka baryayaa inay xukuumad noqoto wax bedesha oo cadaaladda ku sugnaata oo ilaahay ka yaabta markaasuu ilaahay noo naxariisanaya madaxweynahana waxaan ka codsanaya wasiiradan sidaad imankaba aad adigaa workshop baad u qabatay absolutely sax weeye waan ku dhegaysanaya wax allaaliya wixii dhibataaleyna waad wada sheegtay laakiinse waxa weeye dabagal wasiiradan hala dabagalo maxay ahayday guddiyadan baarlamankana madaxweyne fasax dastuurkoo noo ogol inaanu dabagalno wasaarad kasta ayaa madaxweyne kastoo halkaa yimaada odhan jiray salla caleh yaa iyaduna waxa weeyaan anana shaqadaydu waa kula garab taagannahay baarlamaan ahaan xilkayga waa gudanaynaa wasaarad kasta waa ka daba tegaynaa waxaan rajeynayaa inaynu helno intay naga dhamanay wax walba inoo soo xelayd waxa weeye hanti dhowrahoo madax bannaanaada garsoorka oo isna fuli u madax bannaanaada baanka oo isna madax bannaanadoo aan marba tuuba loo ridanoo keen la odhan salla caleh waa adigii ilaahay muusoo maanta ayuu dalkanu sugayaa madaxweyne adigii ilaahay buu dalkanu sugayaa caddaanina waxaan leeyahay caddaaniyow waad ka dallacaysaa tan salla caleh ilaahay meel xun ku dhigi maayo baan idhi nin ilaahay raacayna waxba ma waayo aad iyo aad baan kun jeer kuugu mahadnaqayaa kuu salaamayaa waxaana leeyahay wasiiraday maqlaya cusubow ku dayda caddaani salla caleh caddaani iyo caddaali buu isku darsadaya wasalaamu calaykum horjeedaya waxaan ogahay iminka reer somalilan tan iyo intii xukuumaddii dee salla caleeteed iminkay naga dhammaatayba iminka halkaasaa dhaqdhaqaaqda iimaankii bay naga xumaaday waxaa laga yaabaa shiikh iyo suldaanba in shilinu la eryado xaalaal iyo xalaal la kala garan maayo waxaa laga yaabaa qaar badan inay yidhaahdaan wartalo saciid muxuu caddaan u dhiibay maanta wallaahi baana shilin ii dhiibin wallaahi baanan uuna weydiisan waxna ka cunin efa laakiinse waxa weeye damiirkayga soo lama lahayn isagu wuu ooyey maalinta habeenkaa wareejinaya wallaahi ana ooyey waayo waxa weeyaan waxaan la ooyey waxaa hablihii hadlaayey iyo shaqaalihii hadlaayey iyo sida markii uu ninkii nabadgelya lahaa sida u wada oogsadeen sida wax ugu daadinayeen sida qiimaha lahayd oo ninkaas ku baxaayey kaga baxaayey salla caleh yaa ayaan anigu laftayda dee salla caleh nin iimaanle baanay anigu haddaa aragteen qof dooda oo moogtay caatifiya waa ahluljanna horta qaar baa jira markay tagaan xitaa xarabka ay dee sida wareegayaan aanu khushuucba lahayn oo halaagan baa jira taa oo inturan waxaan qabaa inay ahlu janno yahay nin karo waxaan markaa idiin sheegayaa somalilanday